بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, very good morning. Let me take this early opportunity to welcome all of you to Mogadishu, Somalia, and to this wonderful martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aan uga faa'iideysto fursadan inaan idil ahaantiin idinku soo dhaweeyo Muqdisho, Soomaaliya iyo shirkan heerka sare ah. It is indeed pleasure to join. xaqiiqdii farxad ayay tahay inaan maanta idinkala soo qayb galo shirka caalamiga ah ee maalgashiga Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka dhacaya dalka. This highlights Somalia's kaasi oo looga gol leeyahay inuu ahmiyadda saaro sida ay Soomaaliya diyaarka ugu tahay maalgashi shisheeye iyo midka qurba joogta Soomaaliyeed iyo sidoo kale xoojinta maalgashiga gudaha si loo xoojiyo dhaqaalaheena kobcaya. Somalia has operated in the global market. Soomaaliya waxay ka howlgeli jirtay suuqyada caalamiga ah qarniyo badan iyadoo oo ganacsatadeenu ay isaga kala gooshi jireen wadiiqooyin ganacsi xilliyo hore laga soo bilaabo Masar ilaa Shiinaha. Firfircoonida ganacsi ee dadka Soomaaliyeed waa ay sii jirtay inkasta oo dalku galay tobaneeyo sako oo colaado daba dheeraaday ah, burbur siyaasadeed iyo dhibaatooyin la xiriira cimilada. dhab ahaantii ganacsiga gaarka loo leeyahay oo taageero ka helaya qurba joogta Soomaaliyeed ayaa noqday isla markaana sii wada inuu door muhiim ah ka ciyaaro bixinta adeegyada lagama maarmaanka ah iyo saameyn ku yeelashada dib u soo kabashada dhaqaalaheena. waaxyaha sida isgaarsiinta, xoolaha, beeraha iyo kalluumaysiga ayaa sameeyay kobac dhowrkii sano ee la soo dhaafay. sanadihii dhawaa ee la soo dhaafay waxaa sidoo kale aan u kuurgalnay koror ku yimid shirkadaha shisheeye ee sahmiya ganacsiyada suurtagalka ah iyo maalgashiga maaliyadeed ama xiriirro ganacsi oo lala sameeyo ganacsiyada ku yaala Soomaaliya. mudanayaal iyo marwooyin, inkastoo aan halkan u imid inaan dhiirigeliyo maalgashi lagu sameeyo dalkayga, waa inaan sidoo kale garowsadaa caqabadaha ay Soomaaliya iminka wajahayso. kooxaha xagjirinta ahi waxa ay door ku leeyihiin amni xumada muddada dheer jirtay, iyaga oo sii joogidooda dhulka miyiga ah oo qaarkood ay ku yaalaan dhulbeereedyada ugu qanisan dalka ay kaga sii darayso mushkiladaha cunto yari ee dalka ka jira. waxaan wajahaynaa abaar taagan oo ay suurtagal tahay inay isku beddesho macluul. waaxda maaliyadeed ee dalku waa mid weli u baahan horumarin dhanka nidaamka ah iyo hay-adaha, iyada oo sidoo kale u baahan in si buuxda loo waafajiyo halbeegyada caalamiga ah iyo nidaamyada sida la dagaalanka lacagaha dambiyada ku lugta leh iyo maalgelinta argagixisada AML. waxaa dalkeena ka jirta shaqo la'aan baahsan oo heerkeeda lagu qiyaasay 54%, iyadoo shaqo la'aanta dhalinyarada lagu qiyaaso 67%, halka shaqo la'aanta haweenka lagu qiyaasay 74%. dhanka amniga, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ku guuleystay inuu kooxda Al-Shabaab ka saaro deegaano badan oo ku yaala miyiga laga soo bilaabo bishii Juun ee sanadkan. waxaa noo suurto gashay inaan abaabulno maamulada gobolada iyo bulshooyinka deegaanka si aan u taageerno gacanna uga geysano dadaalada midaysan ee ka dhanka ah kooxda argagixisada ah. inkasta oo ay jiraan caqabadahan aan xusay, waxaa jira fursado la taaban karo oo lagu maalgashan karo waaxyaha muhiimka ah iyo dhammaan goobaha ay ka jirto xasiloonida ilaa xad la isku halayn karo. maalgashiga qurba joogta iyo kan maxalliga ah ee waaxyaha isgaarsiinta, adeegyada bulshada iyo hoteelada waxa uu dhaliyay faa'iidooyin iyo guulo wax ku ool ah. dowladda waxaa ka go'an oo ay diiradda saaraysaa horumarinta kaabayaasha muhiimka ah ee dhaqaalaha, siyaasad dejinta ganacsiga iyo xakamaynta tayada si aan uga faa'iideysano iskaashiga dhaqaale ee gobolka iyo kan caalamkaba. waxaa tusaalooyinka ka mid ah dhisidda karaankeena ku aadan helidda hay-ado muraaqabeyn oo kafaalo qaadi kara tayada iyo shahaado siinta badeecooyinka aan la soo degayno ama kuwa aan inagu dibadda u dhoofinayno si aan ugu hoggaansanno halbeegyada caalamiga ah si aan usii horumarino u diyaargarowgeena ganacsi. baadigoobka aan ugu jirno sidii Soomaaliya ay awood ugu yeelan lahayd ka faa'iideysiga suuqyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah, iyada oo ka mid noqonaysa suuqyada Wato, Comesa, African Continental Free Trade Area iyo sidoo kale dalada bulshooyinka bariga Afrika.
la shaqaynta waaxda bangiyada dalkeenna si aan u xoojinno hay-adaha qaabilsan adeegyada maaliyadeed si ay ugu qanciyaan halbeegyada caalamiga ah iyo ballaarinta helitaanka deymaha maadaama ganacsiyadu ay doonayaan raasmaal ay awoodi karaan inay ku kobcaan. horumarinta maalgashiyada cimilada la xiriira inagoo u marayna hindisaha cagaaraynta Soomaaliya ee dhiirigelinta maalgashiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo tiknoolajiyadaha kale ee deegaanka la xiriira. mudanayaal iyo marwooyin aad ayay muhiim u tahay inaan ka hadlo ahmiyadda maalgashiga shisheeye ee tooska ah ee uu leeyahay qorshaha kobaca dhaqaale ee Soomaaliya. maalgashiyada shisheeye ee tooska ahi waxa ay abuuraan shaqooyin, kordhiyaan badeecooyinka uu wadanku la soo degayo, isla markaana wuxuu ballaariyaa canshuurta iyo dakhliga soo gala dalka. waxaan garowsanahay in maalgashadayaasha ganacsi ay u baahan yihiin xog tayadeedu sarreyso si ay u gaaraan go'aamo ku dhisan macluumaad sax ah. sababtaas awgeed hay-adda wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha u qaabilsan maalgashiga ee Som Investment wuxuu fuliyay daraasado muhiim ah, isla markaana wuxuu isku dubariday fagaarayaal sida shirkan socda isbuucan si uu u bixiyo xogo lagu kalsoonaan karo iyo fursad maalgashatadu isku dhex geli karaan. fursadahan oo dhammaantood hagi kara maalgashi shisheeye oo toos ah. inkasta oo fursadda maalgashigu ay weli ka jirto ganacsiyo badan oo Soomaaliya ka jira, haddana waxaa haatan mudnaanta koowaad saaraynaa maalgashiga dhinaca tamarta, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, ICT, bangiyada, maaliyadda, kalluumaysiga iyo ganacsiyada beeraha la xiriira. waaxyahan waxa ay muhiim u yihiin kobcinta dhaqaalaheenna iyo ballaarinta fursadaha habnololeed ee aqlabiyadda shaqo abuurayaasha ka jira Soomaaliya, ganacsiyada yaryar iyo kuwa heerka dhexaba. maalgashi lagu sameeyo waaxyahan waxa ay gacan ka geysan karaan helidda tamar dib loogu cusboonaysiin karo, isla markaana lagu goyn karo, taasi oo lagama maarmaan u ah horumarinta kobaca ganacsigeena iyo shirkadaha. dardargelinta in dhammaan dadku fursad u helaan tiknoolajiyadda iyo macluumaadka, xoojinta helitaanka maaliyadda iyo kordhinta amniga cuntada. waxaan ka shaqaynaynaa dhisidda nidaam sharciyeed iyo hay-ado si aan kugu fududeyno isla markaana u taageerno maalgashiga aad doonaysaan inaad Soomaaliya ka samaysataan. dowladda Soomaaliyeed waxa ay qorsheynaysaa dejinta qorshayaal la xiriira dakhliga dowladda iyo kuwa aan dawliga ahayn oo lagu dhiirigelin doono maalgashatada shisheeye iyo kuwa qurba joogta Soomaaliyeed. dhammaan dadaaladan waxaa looga gol leeyahay xaqiijinta in maalgashiyadiinu noqdaan kuwa faa'iido sameeya, sidoo kalena u faa'iideeya dalka martigeliyaha ah ee Soomaaliya. mudanayaal iyo marwooyin aad ayaan ugu faraxsanahay inaan si rasmi ah u furo shirkan, isla markaana aan ku dhawaaqo inay Soomaaliya u furan tahay ganacsi iyo maalgashi. aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan idinka rajaynayaa inaad qaadataan shir guuleysta isla markaana miradhal. of the Somali people, I say the world, thank you very much.